بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن مeel kastood naga daawanaysaan waa mar kale barnaamijyadii aan alaaba idin soo gudbin jirnay hadba mawduuc ku saabsan waxyaabaha aan isleenahay waa muhiim in dadku ay wax ka ogaadaan ama markaasi lagu kala faa'iideysanay toddobaadkii hore barnaamijyo badan baan idin soo gudbinay barnaamijkanuna waxa uu ka dhashay ama uu ka yimid mid kamid ah dadkii daawaday barnaamijyadii hore oo soo weydiiyay sida sawirada background-ka dambe aad looga bedeli karo hadii ka soo qaad ayuu leeyahay qofkaasi background-ku uusan ku qancin sidee sawirkaasi background-ka dambe uga bedeli karaa hadaba barnaamijka taas ayuu ku saabsan yahay sida u jeedaanba hortiin waxa yaala sawirkan qofkan waa aniga sawirkan waxaan isaga qaaday qolkayga dhexdiisa armaajadii alaabta dharka la gelinaya ayaa gadaasheeda taala sida sawirka muuqatana gees ayaan taaganahay marka xoogaa waxa moodaa background-kan ma fiicna marka inaan background-kan ayaan tusayaa adinka iyo qofkii soo weydiiyayba sida sawirkan aan background-ka dambe aan uga saari karo marka barnaamijkan guda galo hayloobin inaad maaragtay subscribe dhahdid commentigana waa uu furan yahay oo markaasi sida u aragto wixii tala iyo tusaale ah in barnaamijyada noocan oo kale aan sii wadi karno iyo in aan markaasi laga faa'iideysan inta waxaan ka ogaan karaa commentiyada qaybta commentiga marka commentigaaga ku qor qaybta hoose u aragto barnaamijyadan sulka sare aan hayloobin inaad markaas click siiso subscribe-kana hayloobin oo ah inaad ku darsato si markaas aad u hesho barnaamij kasta oo kamid ah barnaamijyada aan soo gudbino waa tahay sidaan barnaamijyadii horeba idiin baray qaar kamid ah software-rada aan isticmaalo qaar waxay isugu jiraan qaar aan la iibiyo qaarna waa qaar oo free ah maanta software-kan isticmaalayo waa free waa soo dejisan kartaa horena waan idinku sheegay hadii aad rabto inaad wax badan ka ogaato software-kan barnaamijkii hore ee aan ku sameynay waxaad click siin kartaa halkaan aad click siin kartaa geeskan ayaad click siin kartaa kadibna halkaas uu maaragtay waxaad ogaan doontaa waxyaabaha uu qabanayo software-kan waa tahay software-ka aan isticmaalayo waxa la yiraahdaa gim sawirka software-kaad furaysaa hadduu kugu jiro waa okay computer-ka hadduu kugu jirno soo dejiso waa free file deh kadibna waxaad tiraahdaa open desktop-kaagu ku geynayaa kadibna sawirka qaado sawirkan maxaa sawirkaad soo qaadanaysaa sawirka waxa igu qoran inaan iska hubiyo waaye markasta sawirka maarta markaad soo qaadaysid waa inaad desktop-ka uu saaran yahay waxa uu ku qoran yahay waa inaad ogaataa desktop-ka tag wuxuu ku leeyahay sawirka hoos soco sawiro badanaa ku jira sawirka waa kana preview ka fiiri waa isagii kadibna okay dheh kadibna software-kii ayaa soo dhigayaa convert dheh waa sugeynaa hadduu soo dhigayaa waa soo dhigay waa kana hadda software-ku noo dhex yaala marka background-ka aan rabo aan isticmaalo wuxuu noqon karaa background kasta haddaa rabtid waxaad ka dhigi kartaa wax kale oo maaragtay fiore meelo dhismooyin wixii aad rabto google kale background badan ku jira kasoo qaadan kartaa qurux badan laakiin aniga hadda midka aan qaadanayo waxaan qaadanayaa background waxaan rabaa lamida sawirka inaan maaragtay aan wax ka yareeyo background-kiisa inaan yareeyo background-ku waxa la yiraahdaa qaybtaas dambe ee sawirka marka laga reebo aniga la iga reebo wixii kale soo haraa oo ishaad qabanayso waa background marka sawirka qiyaasta uu yahay oo halkaas kore ku qoran sida u jeedidba inaan maaragtay inaan bedelo ma rabo sawirka qiyaastiisa waa kaasa 864 iyo 648 waa sawirka san iyo san marka loo fiiriyo labadaba marka waxaan furanayaa new aan leeyahay background cusub raba inaan keensado new intii uu ahaa
sawirka oo u dambeeyay ayaana maaragtaas weightka iyo heightka labadaba ay noqonayaan marka sidoodan u raba ma rabo inaan wax ka bedelo ma rabo waxa ii soo baxay backgroundkaas ama derbigaas cad ay ii soo baxay marka waxaan rabaa inaan color qurux badan aan color saarto waxaan tagayaa qaybtaas ay ku qoran tahay maaragtay blend tool kadibna colorada halkaan ku jiraan waxaan oo dhan waa coloro sida u jeedidba coloradaas quruxda badan kala duwan marka ka rabtid ayaad maaragtay ka qaadanaysaa hadda kaas oo kale eegno marka aad doorato colorka waxaad saaraysaa geeskaas aad tagaysaa waa jiidi adoo haya shiftiga lahaya waa soo jiidaysaa calaamada soo jiidaysaa halkaas markaa maris waa sii deynaya marka color ay ka buuxinaya meeshii waa sii deynayaa maxaa dhacaya sidaas dhacday marka background xoogaha iftiimaya waaye marka background kana raba marka inaan sawirkeygii aan keeno halkaan keeno sawirkii aan ku laabanaya marka sawirka ku laabo sawirka ma ku laabatid xoogaha yar weyneyso si aad u weyneysatid qaybtaas ay ku qoran tahay zoom click si kadibna hal mar check si sawirka waa kana waa isoo yar weynaaday marka sawirka waxaan sameeynaa waa jaraya marka waa soo jarnaya sawirka sidiisa asagoo ah soo jarnaa waxaan sameynayaa waxaan qaadanayaa toolkaas calaamadaas taasan qaadanayaa ee free select ay ku qoran tahay madaxaan ka bilaabayaa dhibicdaas ay soo fushay waa jiidmaysa ujeeda haddana waan wadayaa mid walba waa wadayaa sidaasaan ku wadayaa inta maaragtay aan waqti badan iga qaadanaysaa boos aan leeyahay kadib markaan jaro ayaan isku soo laabanaynaa aan boos dhahdo waa hagaag waa isku soo laabanay sawirkii waxaan saaray waan dooranay gabi ahaantiis sida idiin muuqataba waan jarnay markii halkaas aad maraysid waad selectaad imaanaysaa markaad dooratid waxaad leedahay meesha ku qoran tahay from path kadibna waxaad leedahay copy control c copy aad leedahay waxaad ku laabanaysaa backgroundkii aan soo samaysanay kadibna paste aad ku leedahay meeshaad kusoo dhehaysaa sidaad ujeedaanba waxaa soo meeshii soo galay sawirkii keliya ah uu ka soo haray background ma jiro marka tusaale yaraan raba hadda inaan ku tuso sawirka ku laabo delete dan dhaho maxaa soo baxaya meeshaas waxaa ka baxay keliya sawirkii marka gidaarkii soo haray darbigii keliya meesha ku soo haray marka saasaan aan u soo qaadaysaa waxay imaanaysaa backgroundkii aan imidaan keenay kadib calaamadaas oo ah move toolka meesha ratid ayaad geenaysaa tusaale ahaan oo kale haddii halkaas ku habboon yahay meeshaas dhehaysid maaragtay waa ku qurxoon yahay halkaas oo kale ku fiican yahay halkaas oo kale markaa keentid waxaad sameynaysaa kadib selectionkaas ka qaadaysaa korki meeshaas meel kamid ah haddaa rabtid waa weyneyn kartaa sawirka tusaale ahaan oo kale hadduu yar yahay oo kale waa weyneysan kartaa scale imaanaysaa scale dhehaysaa clear ku siinaysaa kadibna waa weyneysanaysaa sawirka waa weyneynaysaa hadduu yar yahay laala haddaas dhays uu yar yahay oo kale soo u qurxoonaado dadka qaar waxaa laga yaabaa inaad fotooyinku aragteen sawir weyn oo saas oo kale ah tusaale ahaan oo kale hadda ma samaynayna laakiin waa ku tusayaa sawirkan oo kale waa weyn yahay tusaale ahaan markuu scale-ka dhameeyo sawirku waa weyn yahay marka weynay sidoo kale calaamada selectionka tool move-ka dooro click ku sii sidaas ku soo baxaya kadib haddana mar kale paste soo dhig asagoo yar kii kale oo yara meelahan meesha uu sds uu ku fiican yahay oo kale gee meesha uu ku fiican yahay oo kale sidaas oo kale waa samayn kartaa laba sawir oo kale haddaa rabtid
kan oo kale ka weyna si fiican u muujinay kan yarka oo kale waxa ka dhigaysaa xoogaa inuu maartay uusan si fiican u muuqan oo kale meesha ku qoranta opacity imow kadibna waxa tiraahdaa yare opacity-ga yare markii falaarta soo baxdo oo kale falaar yara soo baxaysa oo kaas yarka oo si daciifaya oo kale saas oo kale u noqonaya marka hadda ma rabno hadda waxaan rabnaa inuu hal sawir noo yahay taas waa intuu si kaliya aan dib ugu laabto halkaasaan ku laabanayaa kadibna waxaan leeyahay halkaas markuu joogo qaybtaas meeshaas uu ku fiican yahay kadibna waxaan leeyahay click ku sii waxa baxaya selectionkii sida u jeedaan baad selection dhan ma lahan kadibna daaratid qoraal ku qoro meeshaan oo kale qoraal ku qoro oo kale qoraal qurux badan oo kale ku qoran kartaa farta colorka rabtaa ka dhigin kartaa farta aan ka dhigno blue kadibna waxaa ku qoran kartaa xusuus wacan kadibna sidaas ugu qoraysaa xusuus wacan oo kale igara lahaada teleefonkeyga hal mar soo dhacaya kadib waxaad ku qoran kartaa qoraalka aragtida ku qoraysaa qoraalka kale marka qortida kale weyneyso wax yar kadibna weynee qoraalka xusuus wacan oo kale waa qornay kadibna sidaas ugu qoraysaa colorka daartid colorka waa bedelinaysaa colorka hadduu uusan maarta soo bixinin oo kale bal color madow aan ka dhigno bal aan fiirino ku soo baxo madowga madowguna soo bixi waayey bal aan ka dhigno caddaan aan caddaan ka dhigno caddaankana isna si fiican uu soo baxayo si kastoo ahaataba kulleyba fartii colorkii soo baxaya oo meesha ka soo baxaya oo kale ayaad dooranaysaa gaduudkana waan eegnay bal gaduud tiqa aan eegno hay xusuus wacan kadibna meesha rabtida u jiidaysaa kadibna select none aan leedahay sidaas ku soo baxaya marka hadda waa kana farqiga u dhaxay waxa waaye background-kan aan bedelnay background muhiimadda ma ahan kaliya inaad hal background aad maartay markasta kan waa haysataa tusaale ahaan oo kale haddaan new dhaho new waxa soo baxaya meeshaas cad marka halkii aan colorkan aan ka dooranaynay colorka noocaan aan dooranaynay noocan uu noo ahaa haddaad waa bedeli kartaa colorka rabtaa ka dhigi kartaa kaasoo kale ka dhigin kartaa markasta maarta kii saanu noqonaya sawirkii haddana inta soo dhigaysaa markasta marka colorkii ku anfaca aad ka dhiganay colorkaas dhigaysid backgroundka kii adiga maarta aad ka heshid oo kale ka dhiganaysaa waa kana saas uu noqonaya haddii kale kuwan hadda backgroundadan dhowr color isku jiro waaye marka haddaad rabtid hal color inaad qaadatid oo kale tusaale ahaan oo kale waxaa leedahay waxay imaanaysaa meeshaasay ku qoran tahay edit waxaa leedahay fill mujida meelay ku qoran tahay bg color oo kale new markaad tiraahid new haddoo kale colorka waa kana kanoo kale waxaa imaanaysaa edit meeshay ku qoran tahay waxaa leedahay waxaa ka dhigtaa colorka bedel buluugaas kaloo noqonaa wada buluug ah sidaan kaloo noqonaya colorka haddaa rabtid saasaa ka dhiganaysaa
haddaad waxaa samayn kartaa intaad sawirka soo dhigin tusaale ahaan oo kale hadda colorkan blue waaye blue tiqa waaye marka calanka oo kale tusaale ahaan oo kale color calanka oo kale waa xoogaa maaragtay haddaanan qaldanin waa blue oo xoogaa bibiya ah marka fill colorka bedel waxaan maleynayaa inuusan weli kan saas ahayn laakiin tusaale yaran idin ku tusayaa kulleyba deetan waxay imaanaysaa waxaa soo qaadanaysaa xidigtii marka xidigtii keensanaysaa xidigtii aad maaragtay waxaad ka dhex raadinaysaa meesha waatana xidigtii deetana colorka xidigta ka dhigaysid maxaa la rabaa inuu noqdo white because xidigtu waa caddahay kadibna xidigta waa taasaa halkaasaad imaanaysaa weynayso xidigta haddaa rabtid sizekeeda weynee wax yar ku dar xidigta waa tanaa kadibna xidigta markaad timaadid hal mar click ku sii sidaasay noqonaysaa dhexda ma ku aadana dhexda ku aadi hey hadda dheh oo kaasa kadibna sawirka soo qaado sawirka waa wada tahay paste ku soo dheh kadibna waxaad tiraahdaa xagga u dhaqaaji waxay rileexi si loo arko inay xidig in calankii tahay wax gadaashaada yaala wax yar waa kaasa qof kasta waa dareemaya marka waxa gadaasheeda yaala inuu calankii yahay inuu waxa backgroundkeega inuu calankii yahay marka meeqa noocan aan sameynay noocan waa ku tusay saan waa ka dhigin kartaa haddaad rabtid waxaa ka dhigin kartaa maxaan ku irahdaa sidaan oo kale ka dhigin kartaa colorkan haddaad rabtid waxaa ka dhigin kartaa colorka nooca rabtid adiga kugu xirantaa dooro calanka ka dhiganaysaa marna waa kaasa haddaad rabtid waxaa ka dhigin kartaa calanka Soomaaliya deetana nooca rabtaa ka dhigin kartaa haddaad rabtid maaragtay iyadoo calankii oo kale calanka oo kale waad sharaxaysaa waad sii quracsan kartaa magaca ku qoran kartaa waxaad rabtaa ku samayn kartaa marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka inaan badiyo ma rabo marka markii hore wuxuu ahaa sidan ayuu ahaa backgroundka gadaasheedii yaalay backgroundka gurigeyga waaye laakiin marka dambana waxaan ka dhiganay waa bedelnay marka backgroundadii waa bedelnay mar saasaan ka dhignay marna waxaan ka dhignay sidan marna waxaan ka dhignay calankii gadaal xidigta ka dhignay marba sidaa rabtad ka dhigin kartaa marka intaan dib dambe u kulmi doono ha iloobin inaad subscribe dhahdid comment inaad ka bixisid barnaamijyadan kula aragtaa su'aalahaagan waad soo gudbin kartaa haddaad u baahan tahay inaad ogaatid waxyaabo badan sida baanarada loo sameeyo waxyaabahaas oo dhan waad isna soo weydiin kartaa waxaan idin isku dayi doonaa inaan qaybaha dambe kusoo gudbino sidaa iyo nabad geliyo